موتدي بار دير لو اركو maamul hala hada shacab hala hada ciidan hala hada saddexda hay'adood ee dawladda waxay amar u qabaan bartay ku arkaan inay ku gubaan lama arki karo in bashareer marka shaqeyn doona baar dheer kulanti wanaagsan saaxiibayaal waxa idin la wadaagi doonaa kulan xasaasi ah iyo waliba isku imaatan oo si weyn loogu soo horjeedo in bashareerka iyo waliba sidoo kale mootooyinka ka shaqeeya magaalada baar dheer ayaa halkan idin kula wadaagi doonaa gudoomiyaha maamulkaasi iyo waliba mas'uuliyiintiisu maanta ay ku dhaqaaqeen marka hore hadii uu ku soo gaaro muuqaalka laagare oo share gare si saaxiibo fara badan u gaaro markaas aragtidoodan ay u dhiibtaan maamulka degmada baar dheere ayaa tilaabo cajiib ah qaaday iyadoo oo markaasi muddooyinkii ugu dambeeyay lagu arkayay qaybo badan oo kamid ah deegaanada maamulka markaasi Jubbaland gaar ahaan gobolka Gedo in ay markaasi aad ugu soo badanayeen kooxo ka tirsan ama markaasi iyaga oo dhibaatooyin kala gedisan halkaasi ka geysanayay gudoomiyaha maamulka degmada baar dheere ee gobolka Gedo ayaana tilaabo culus u qaaday shacabka ku dhaqan halkaasi iyada oo markaasi gebi ahaanba laga mamnuucay in shareerka ama niqaamka wajiga lagu xirto sidoo kale haweenka maamulkaasi amarkaasi degmada ayaana si weyn markaasi ugu hadlay arintan iyaga oo markaasi sheegay in markaasi aysan u wanaagsaneyn in niqaam la'aan ama in shareer la'aan ay magaaladaasi ku dhex joogaan ama ay ku socdaanba waxa sidoo kale iyana markaasi laga mamnuucay degmada baar dheere gobolka Gedo mootofakonta ama mootada labada lugood leh taasi oo dadka inta badan baadiyaha caanaha uga soo qaadanayeen kadib markii la ogaaday in koox ay ku soo dhaxdhuumaaleysanayso ama markaasi ay imaanayso deegaanada baar dheere iyo waliba sidoo kale tuulooyin kale ku gaadaaman gudoomiye aadan dhagax cadde iyo mas'uuliyiin kale ayaa talaabadan u qaaday in ay markaasi ka gungaaraan ama ay ogaadaan waxa halkaasi ka jira ama markaasi ee bulshada ku soo dhaxdhuumaaleysanaya in shareerka oo laga isticmaalo guud ahaan geeyga Soomaalida ayaa saaka ka dhaqan gali rabo magaalada baar dheere ee xarunta gobolka Gedo in gebi ahaanba laga joojiyo ama qofkii lagu arko isagoo isticmaalaya loo aqoonsan doono in uu yahay ama markaasi uu u shaqeynayo arrintan ayaa imaaday kadib xilli habeenadii ugu dambeysay deegaano fara badan oo kamid ah maamulka amarkaasi ee gobolka Gedo lagu arkayay in kooxaas habeennimadii ay ku soo dhaxdhuumaaleysanayaan iyaga oo markaasi dhibaato weyn ka geysanaya ama u geysanayay dadka deegaanka iyo waliba sidoo kale u socodka magaalooyinka qaybahooda kala duwan baar dheere Soomaaliya maanta iyo waliba shalay ilaa ay xalay hadal haynta ugu weyn ee ka taagan ayaa noqotay in shareerka oo gebi ahaanba laga mamnuucay iyo waliba sidoo kale isu socodka bulshada magaalada dhaxdeeda oo aad u yaraanayo taasi oo markaasi ay ku sameeyeen dadkuna in shareer la'aan dumarku aysan socon kareynin laakiinse maamulka ayaana talaabadan qaatay go'aankana ku dhaqaaqay in gebi ahaanba laga mamnuuco iyada oo markaasi loo arkay in dhibaato weyn lagu qabo ama saameyn weyn amniga xaqiisa ugu imaanayso isticmaalka in shareerka iyo mooto laba lugaaday ama fakon bahasha loo yaqaano dadka deegaanka ama markaasi degmada baar dheere runtii dhammaantood waxay u badan yihiin dad reer miyi oo halkaasi caano looga keeno mootofakontana loo isticmaalo halkii gaadiidka ama kareetooyinka la isticmaali jiray laakiin hadda laga mamnuucay oo ay markaasi isticmaalayeen caanaha geela iyo waliba waxyaabaha la midka ee loogu keeno miyiga ay ku soo qaadanayeen mootofakonta shalay maanta gebi ahaanba magaalada wax caano soo galay ma jiro maamulka baar dheere ayaana markaasi talaabadan ku tilmaamay in wax weyn looga bedeli doono amniga magaalada maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay saameyn weyn ku hayday ama markaasi dhibaato weyn lagala kulmayay markaasi talaabadan ku tilmaamay in wax weyn looga bedeli doono amniga magaalada maadaama muddooyinkii ugu dambeeyay saameyn weyn ku hayday ama markaasi dhibaato weyn lagala kulmayay waxaana sidoo kale uu sheegay gudoomiyaha maamulka ama markaasi degmada baar waxaa sidoo kale uu sheegay gudoomiyaha degmada baar dheere ee gobolka Gedo in markaasi laga bilaabo waqtigan la jooga in gebi ahaanba markaasi aan lagu arki karin ama shakhsigii lagu arka inuu soo xirto in shareer ama mootofakon magaalada ku soo dhaxmaray in sharciga lala tiigsan doono oo talaabo sharci laga qaadi doono maxay ka bedeli doontaa joojinta in shareerka iyo waliba sidoo kale fakonta amniga magaalada baar dheere aragtidaada qaybta hoose faalada commentiga nagu wadaag